قبيل والله تريا ولا لقى سجايا تفارع رقيسو فشري متبريا قبيل والله تريا ولا لقى سجايا تفارع رقيسو فشري متبريا قلبي ما لنتيت المعنيد طبعا يا سيدي وات عن حسيني وات عن حسيني اي كنت لقى الكيدي ما لنتيت المعنيد طبعا يا سيدي وات عن حسيني وات عن حسيني على خوف المانتا والتوحيد كيبي كثير عن شبينو ولي تاغنو ولي تاغنو على خوف المانتا والتوحيد كيبي كثير عن شبينو ولي تاغنو aad baan u salaamaya shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay dhageysaneysaan bari ilaa galbeed gobol walba joogtaan degmo walba tuulo walba iyo luuq wal oo fadhidaan waxaanu leenahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland maalin taariikhiya oo guula ayaynu ka soo talloobnay shalay
oo aynu dooranay madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda somaliland dalkana ka qabanay doorashadii shanaad ee one man one vote free and fair elected presidentna uu maalmaha dhow inoogu dhawaaqi doono commissionkeenu dhammaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya dabcan waa la wada daalan yahay oo shacbiga daal fara badan baa ka muuqda oo diiwaangelintiiya oo doorashadiiya oo howlaheediiya marka aad iyo aad baan idin wada salaamaya marka koowaad midaasi iyada waxa weeye dee salaan guud oo aan dhammaantiin ba idiin soo wada dirayo war dee dabcan aan idiin sheegayaa ma jirto warka mar baa nihayadda dhiibaa idaacadda radio cadaala wararka kuma celceliso oo nihayadda mar bay idiin dhiibtaa haddiise aad tafaasiir doonaysaan waxa weeye 100 iyo dheeraad cod ayuu ku baxay cod aan la isku dhaweyn ku dhawaad 180 codadkana waa la dhameeyey sanaaduqda soo hadhayna waa nambarada imanaya iyaguna waa nambaro aan difference weyn ama macno weyn kusoo kordhinayn doorashada jamhuuriyadda somaliland marka dadka siyaasiyiinta dabcan way la socdaan laakiin haddii maantida cidi shaki kaga jirto madaxweynihii jamhuuriyadda lixaad ee somaliland waa la doortay international communitygu way haysataa mandatekii u dambeeyey resultigii doorashada waxay noogu baaqday dhammaantiin ba inaynu aqbalno natiijada doorashada jamhuuriyadda somaliland haddaynu nahay ucid wadani iyo kulmiyaba taageerayaashooda dhinacyada marka commissionka ku dhawaaqana waa ku wada qasbannahay inaynu aqbalno waa ku qasbannahay inagoo wadaniya inaynu aqbalno waa ku qasbannahay inagoo ucida inaynu aqbalno waa ku qasbannahay inagoo reer somaliland oo kulmiya inaynu doorashada qarankeena jamhuuriyadda somaliland aynu wada aqbalno intaasi waa natiijadii doorashada wax kaloo nihayadoon idinku daro iyadana runtii dee garan maayo laakiin yaa guulaystay commissionku ama wadani ha idinku dhawaaqo ama kulmiya ha idinku dhawaaqo ama faysal ha idinku dhawaaqe waa iyo cidda guulaysatay waa shacbiga jamhuuriyadda somaliland cidda guulaysatay waa shacbigii qaranka lahaa oo doorashadii shanaad ay uga dhacday jamhuuriyadda somaliland waa doorashadii shanaad ee kuyuga u galay odayga islaanta da-da dhexe duqay waayeel lab iyo dhadig sabi iyo dhallaan ay safafka dhaadheer uga wada shaqaynayeen waa doorasho shacab iyo ciidan duqay iyo madax dhaqameed salaadiin ay hareeraha ka joogeen waa doorashadii shanaad ee jamhuuriyadda dimuqraadiga somaliland waa doorashadii shanaad ee dimuqraadiga ah free and fair elected sanduuqa loo tago marka dhammaanteen waa guulaysanay horta haddaynu reer somaliland waddadii dimuqraadiyadda ee tallaabada iyo dariiqii aynu u soconnay bay somaliland u guulaysatay wajahadii guusha ayuu qarankani qaaday markii la qabtay 2017 doorashadii one man one vote-ka jahadii guusha ayuu qaranku tallaabo soo qaado jaranjarada soo fuula maanta oo aynu taagannahay 7 sano ka bacdina qaranku jahadii guusha ayuu qaaday dabcan aragti siyaasadeed baa lagu tartamayay qabaa'il laguma tartamaynin shacbigu qabaa'il kuma tartamaynin qabayladu may ahayn ka cabdiraxmaan iyo muuse kasoo kala jeedaane aragti siyaasadeed iyo mabaadi iyo aragti baa lagu tartamayay xisbiyo madax bannaan 2017 qabiilama kala guulaysan shacbiga jamhuuriyadda somaliland aragti bay ku tartamayeen codadkuna waxay ka imanayeen goob walba from qulajeed to salaxley to caynaba to gabiiley to goob walba sidaas si leeg baa sanaaduuqda saaka doorashada lagu kala badiyey iyo kuwa aragtida siyaasadeed iyaguna aanay saaka ku guulaysanin dhankay doonaanba ha noqdaane iyagana ay waxa weeye jamhuuriyadda somaliland ay aragtida siyaasadeed dee ku kala iibinaysay oo ay u kala tartamaysay markaa horta qabiil ma guulaysan xisbi khaasina ma guulaysan oo odhan maayo xisbi khaasaa guulaystay saaka shacbiga jamhuuriyadda somaliland baa guulaystay isbahaysi wax la yidhaahdo oo keligii guulaystay ma jiro wadani wax la yidhaahdo oo keligii guulaystay ma jiro haddii ilaahay raalli ka dhigo qabiil guulaystayna waluusan jirin oo isagu guusha iska yeeshay taa idinku dhaartay aragtidaasi markaa waxa weeye aragti jamhuuriyadda somaliland guulaysatay shacbigii isbedelkana aragtidoodii siyaasadeed iyo mabaadi'dii bay iibiyeen 5 sano mandate ku bixiyeen in qaabka iyagu ay doonayaan loo maamulo oo ninkaasi u maamulo halkii shalay mandate-ka la siiyey madaxweyne iyo xisbi
inuu mandate-ka dhiibo oo guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda somaliland ay dhiibeen. sidaas si leeg baa maanta guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda somaliland ay dhiibeen. haddaba waxaan kula dardaarmaya dabaday jiraana faray taageerayaashii faraha badnaa baaxadda lahaa mabda'a siyaasiga ah ee xisbiga wadani iyo doctor cabdiraxmaan ku hogaaminayay inay liqaan oo ay cabaan inaan qabyaalad aanay ahayn ta guulaysatay, inaanay mucaaradad iyo muxaafad ay tahay waktiga loolanka ee kambeynka ee saaxadda siyaasadeed, inuu dhammaaday kambeynkii siyaasadeed iyo loolankii oo saaka dalku uu ka baxay xaaladii doorasho. sidaa daraaddeedna aynu wada jeedsanayno mucaarad iyo muxaafidba qarannimadii jamhuuriyadda somaliland iyo sidii dalka aynu wada shaqayn lahayn. sidaa daraaddeed marka walaalaya waxaynu rabnaa wada jir, midnimo iyo walaaltinimo qaranka inaynu hareeraha uga wada istaagno. taana waxaa laga rabaa bahda manhajkoodii iyo buuggoodii siyaasadeed iibgeeyey ee shacbiga jamhuuriyadda somaliland ay la iibsadeen ee ololaha kambeynka ku jirtay. mas-uuliyad dheeraada dhammaantiin bay naga saaran maadaama buuggeenii mabda'a siyaasiga ah ee 5 sane dalka lagu hagayey uu iibsamay oo librariyadii jamhuuriyadda somaliland laga iibsaday 2017 suuqa uu expire ku noqday oo aan la iibsan. saaka inaa buugga hilgelisaan oo hareeraha ka joogtaan. waxaa guulaystay waa mabda'a iyo manhajka barnaamijka xisbiga. waxaa guulaystay waa aragtidiina iyadoo jamhuuriyadda somalilandna wada guulaysatay. haddana saaka in 5 sano buugga lagu hago jamhuuriyadda somaliland ayaynu ku wada guulaysanay. marka waxaan idin farayaa intiina social media tiktok isticmaalaysa iyo intiina telegram iyo facebook isticmaalaysa iyo intiina aaladaha kale ee social media isticmaalaysa iyo intiina aan aalada isticmaalin ee dhegaysanaysa, dhammaantiinba waxaan idin wada farayaa wada jir, walaaltinimo iyo waxa weeye in dal iyo dad mida aynu dhammaantiinba ka wada shaqayno. somaliland marxalada adag bay soo martay. marxaladihii 7 sane ugu dambeeyey qaar ka culus oo ka adag bay soo martay. kuwana way ka soo baxday. marxaladihii 7 sane ugu dambeeyeyna way ka soo baxday. marxalada dambe oo iska dhici doona waayuhu istaba socdaayay iyagana way ka bixi doontaa. marnaba loo baqan maayo qarankeena jamhuuriyadda somaliland. shacbigii wadnaha farta ku haya waxaan idin leeyahay qaranka wuu guulaystay. doorasho peaceful oo nabadgelyo ah oo ninkii alla u qorayba uu calfanayo commissionka ugu dhawaaqayo ayaa qarankeena jamhuuriyadda somaliland ka hana qaatay. dad shacbiguna mandate aad u ballaaran ayuu bixiyey oo uu siiyey madaxweynaha cusub ee loogu dhawaaqi doono haddii rabbiga raxmaanka raalli ka dhigo, oo magaciisa oo saddexaadna aad ka sugi doontaan hay-adda commissionka qaranka jamhuuriyadda somaliland. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooye, kumaynaan kala aragti duwanayn qabaayil qorshaa ku haystataa. kumaynaan kala aragti duwanayn deegaamo. kumaynaan kala aragti duwanayn xaafado. waayo xaafad walba sanaaduuq vice versa oo dhinac walbaa ka timi. laakiin waxaynu ku kala aragti duwanayn manhajka iyo siyaasadda iyo musharax waliba wixii uu iibinayay ayay somaliland kala iibsatay. somaliland dhinac walba waa laga codeeyey, codkana waa la wada leeyahay. codka kulmiyaa la wada leeyahay, ka wicid baa la wada leeyahay, ka wadani baa la wada leeyahay. marka cid gaar u guulaysatay ma jirto. intii aan caaqilka u ahaayay qaranka jamhuuriyadda somaliland, kuwiina codeeyey iyo kuwiina aan codayn, kuwiina kaarka qaatay iyo kuwiina aan kaarka qaadan, kuwiina 3 xisbi u kala codeeyey iyo kuwiina dalka dibadda kaga maqan baa. waxaan idin leeyahay ballanteenu iyo halhaysteenu somaliland guulaysatay weeye. haddaad tiktok ku jirtaan somaliland guulaysatay weeye. haddaad media ku jirto somaliland guulaysatay. waqtigii xifaaltanka, riixa, xaraabaha, ila meeraysada, loolanka siyaasadeed finish. waxaan jecelahay inaynaan shacbi ahaan iyo ummad ahaanba filan dhammaaday aynaan tigid u goosanin. ninka filan dhammaaday tigid u goostaa waa nacas. ninka filan dhammaaday sanamooga oo la xidhay oo lagu rawaxay hortaagan windowgii tigidhada taagan ee lahalaygoyo isaguna waa nacas iyo warmooge. markaa rag iyo dumar, duqay iyo waayeel, ballanteenu waa calanka jamhuuriyadda somaliland. ballanteenu waa ereyga sadaqada suuban ee akhrinayna anfacayo qarankeenana wanaagsan. ballanteenu waa dulqaad, waa isu dulqaadasho, waa wada jir, waa walaaltinimo, waa wada xodan lahaansho.
ballanteenu intaa weeye. markaa dhammaantiin mucaaradkii shalay, maxaafidka maanta, maxaafidkii shalay, labadiina dhinacba waxaan idin farayaa kol boqolaa buugga manhajka dalka lagu hagayo maxaafid u ah, tiimka kalena buuggoodii bay doonayaan oo opposite ku ah vice versa. marka taasi waa nidaamka saxda ee aynu u samaysanay 3 xisbi qaran oo aynu u taagnay tiirka qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ee dastuurkeena. waataynu wada diyaar garownay dhammaanteen inaynu ku ballanno qarannimo, inaynu ku ballanno dal jamhuuriyadda Somaliland la yiraahdo. waxay iska dhowraysaan xarafta, waxay iska dhowraysaan ereyada muxuu ahaayay in cid gaari guuleysatay, waxay iska dhowraysaan in wax la kala rixrixday. wax la kala rixrixday ma jirto. labada daamood ee Burco way guuleysteen, labada daamood ee Hargeysa way guuleysteen, daamaha Boorama way guuleysteen, daamaha Beligooldana way guuleysteen, daamaha Caynamana way guuleysteen, daanaha Arigaabana way guuleysteen, xaafad waliba way guuleysatay, deegaan waliba way guuleystay, degmo waliba way guuleysatay, qaranka jamhuuriyadda Somaliland baa guuleystay. hal haysteenuna waa maxay? Somaliland guuleysatay. Somaliland guuleysatay. wadani waa xisbi qaran oo jamhuuriyadda Somaliland hadduu guuleysto, kulmiyana hadduu guuleysto waa xisbi qaran, ucidna hadduu Faysal Cali Xuseen guuleysto waa xisbi qaran. laakiin cidda guuleysatay waa iyo markaa hadday doorasho dalka ka dhacdo, nabadgelyo ku dhacdo iyo walaaltinimo wada jir, loolankii siyaasadeedna soo dhamaado, cidda guuleysatay waa ciddii qaranka lahayd. xisbiguna qaranka ayuu ka tirsan yahay. marka intaa laabta ku ogaada, intaa dhammaantiin laabta ku ogaada. soo intaa ma maqlaysaan? intaa dhammaantiin laabta ku ogaada. doorashadan maanta ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland haddii ay iyadana war ka sugaysaan, dee waxaan filayaa in 100 iyo dheeraad codad kale u kala badiyey ay taa tahay. taasna shacbiga hadlay oo mandate bixiyey. shalayna waxaa lagu kala badiyey 80 iyo 90 inta u dhaxaysa, shacbiga hadlay oo mandate bixiyey. marka sunnaha noloshay ka mid tahay, waayuhuna waa halka labadiisa galin. qolo walba maalin waxa weeye team kasta buuggoodu maalin buu guuleysanaya. anigoo radio Al-Cadaalad 7 sano ugu dambeeyay dabcan mucaarad ahaa oo daadihinaya idaacadda radio Al-Cadaalad, waxaan filayaa waxa uu caaqilkii daadihinaya barnaamijkan uu ka digayo intii qofka kusii rafta ee kaga dambeeyana waa nacas, rag iyo dumarba. qofka ka dambeeya ee kaga sii waa madaxweynihii qarankan aynu ku ballannay 1991kii dib u soo noqoshadiisa. madaxweynahaasi kii hantay ee manhajkiisa iibsaday wuxuu ku leeyahay kalsoonidii aad bixisay waad ku mahadsantay. kii ka codeeyay manhajkiisa iyo buuggiisana wuxuu leeyahay kalsoonidii aanad bixinin haddaan ku tusayaa oo manhajka iyo buugga inaan kaga dhabeeyo qodobada iyo pointiyada aad ku soo daraysana diyaar baan kuula ahay. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu idin leeyahay oo uu idin farayaa inuu madaxweyne u yahay daan walba, degmo walba, gobol walba, calanka iyo ciidda uu kitaabka u marayo. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro mucaarad iyo muxaafad ba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland lixaad ayuu idin noqonaya. waa madaxweynihii degmo walba iyo daan walba, waa madaxweynihii gobol walba. luqadda af Soomaaliga wax ku fahantaane waa madaxweynihii qabiil walba. above all of this waxaana dhan waxa ka sarreeya waa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Somaliland. xaq baad u leedahay inaad taas iyo challenge geliso oo aad tiraahdo kuma qancin buuggaaga. percentage-kii inta ka codaysayna xaq bay u leeyihiin. wixii si fudud lagu helaa xisaab la'aan bay ku baxdaa. marka shacbiga gobol 6 gobol ee jamhuuriyadda Somaliland taaska geliyay iyo waxa weeye qaybta ka soo hadhay ee manhajkiisa ka soo hadhay waa sunnaha nolosha iyo dimuqraadiyadda oo manihi nidaam dictatoriyad ku salaysan, nidaam aragti kala duwanaansho fikradaha iyo challenge-ga ikhtiraca
iyo mabaadi'da kala duwan ayaynu ku salaysannahay shalayna sidaas leeg ayaynu mabaadi'da aragtida iyo ikhtiraca ku kala duwanay qasab bay ku tahay doctor cabdiraxmaan inuu hanto kalsoonida shacbiga intii manhajkiisa aan ku qancin inta ku qanacdayna inuu u hirgeliyo waa tuu taagan yahay ee uu fadhiyo dhammaanteedna aynu wada sugayno kii shalay toole aynu qayb inaga ka midii manhajkiisa aynaan ku qancin wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ahaa mucaarad iyo muxaafad hanashada iyo isku haynta jamhuuriyadda somalilan waxaan filayaa inuu in badan ka soo baxay muuse biixi cabdi oo loogu yimi somalilan mida waxaana loogu yimi qaran jamhuuriyadda somalilan oo laba doorasho isa saari ay dalka ka dhaceen waa uga mahad celinaynaa madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi inuu qabtay doorashada baarlamaanka iyo togolaha deegaanka ee isa saarka lahayd waa uga mahad celinaynaa muuse biixi cabdi inaynu saaka hayno hargeyso nabadgeliya boramo nabadgeliya burco nabadgeliya iyo cerigaabo nabadgeliya dabciga nolosha iyo sunnahay ka mid tahay in jamhuuriyadda somalilan marna xadka sii cararto marna soo cararto dowladaha ugu waaweyn dunida iyadana way ka dhacdaa colaada iyo nabadda abaarta iyo jiilaalka roobka iyo roob la-aantu noloshay iyadana ka mid tahay marka waxaynu leenahay mabaadi'dii uu iibiyey muuse biixi cabdi 7 sane ugu dambeeyey intii karaankiisa waa qabtay wamaa jacala allahu min qalbayn intii qalbigiisa u jeeday waa ku guulaystay muuse biixi cabdi mahad gaar aynu uga diraynaa madaxdii ka horreysay ee daahir riyaale kaahin madax gaar aynu uga diraynaa madaxweyne alxaag axmed maxamed siiraanyo naxariistii janno ayaynu ilaahay uga baryaynaa xaaji maxamed ibraahim cigaal oo saldhig iyo foundation u ahaa aabihii calankan iyo ciidan keenay cabdiraxmaan tuur ilaahay subxaana watacaala iyagana waxaynu weydiinaynaa intii dhimatay qabriga inuu nuuro intii xanuunsanaysa caafimaad taama inuu ilaahay siiyo intaa waxa weeye jagada banayn doontana waxaynu rajaynaynaa nasasho iyo waqti wanaagsan walaalayaal dabcan golaftanka saaxadda siyaasadeed liibaan iyo muuse biixi cabdi waa niman reer hargeysa waa niman ceelka ku wada dhashay waa niman golaaftamayey waa niman midna inankii dhashay midna inantii dhashay oo waxa weeye ceelka magaalada hargeysa ku wada nool shalay waa wada joognay darhad waa wada joognay tii ka horreysay dhagaxbaan isku tuurtuurnay tii ka dambeysay waa wada qosallay tii u dhexaysay dhagaxbaan haddana tuurtuurno jay baan isku sayrsaynay dooxa magaalada hargeysa inaanu annagu ku goolaaftanno dabciga nolosha liibaan iyo muuse ka mid ahay taa macnaheedu ma aha inaanu annagu iyo muuse dhallinyaroy liibaan iyo muuse inay ahaayeen col daahood go-ay marka waxaan idinkula dardaarmayaa naftiina iyo naftaydaba in aynu waxa weeye ku soo celinno qaranka jamhuuriyadda somalilan qarankii uu ahaan jiray loolankii siyaasadeed wuu dhammaaday wakti kastoy doorashadu dhacdana xaraf doorasho dabcan way iska jiraysaa oo dabciga nolosha ayay qayb ka tahay laakiin mar walba waxaynu ku dadaalaynaa in kambeynkii ololaha doorashada jamhuuriyadda somalilan uu dhammaaday casharna ka qaata in liibaan iyo muuse biixi cabdi ay yihiin laba aabba wada dhalay iyo ubad walaalaa midna inantii baa dhashay midna wiilkii baa dhalay maxamuud iyo cadar baa kala dhalay ceebi meeshaa ma taallo dabciga noloshu waxay ahayd xaaji buugga inaga sax iyo sidanuu sax ku yahay waktigiina wuu dhammaado ninka soo fuuli doona iyo ka kursiga ku fadhiisan doona dabciga noloshay ka mid tahay isagana intii tiri buugga ayaanu kugu raacnay ee noo hagaaji inay xisaab ka sugayaan inta saaka fadhidana ee fadhiisan doontana ee aragtida iyadu tiri buugga kuma qanacsanina inuu kalsoonidooda hanto uu qalbigooda iyo qulubtooda buugga u soo jeediyo aragtina ka dhegaysto iyaduna waajib dastuuriya weeye intaynu u dabaaldegi lahayn xisbiga kulmiyaa guulaystay oo cid baa guulaysato waddani baa guulaystay war waxaa lagu kala guulaystay waxa ka weyn waxaynu ku guulaysanay dhammaanteenayna mideeya buugga kulmiye iyo kawcid iyo ka doctor cabdiraxmaan hogaaminayo ee waddani waxa ka weyn buugga dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo guulaystay international community iyo beesha caalamka oo doorasho xor iyo xalaali dalkeena ka dhacday ahna tii shanaad qaaradda africa ay cidhiidhi ku tahay inay ka dhacdo one man one vote free and fair elected presidentna uu dadweynaha shacbiga jamhuuriyadda somalilan u taliyo waxayna mideeye ee aynu ku wada guulaysanay
ayaa ka badan waxayna kala qaybinaya wada dhalashada wax lahaanshaha wiilka iyo abtiga 10 kilometer square caasimadaha aynu ku wada nool nahay iyo laba aabbo wada dhaliyo ubad walaalaa inaynu nahay oo midna inantii dhashay midna inanka dhalay dhammaanteen intayna kala qaybinaysa waxaa ka weyn inta ina midaynaysa dabciga nolosha ayay ka mid tahay inaynu waxa weeye marna qosolno mar yar xanaaqno mar fadhiisano waa qaabka dabciga nolosha ee sida ay u dhisan tahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asaasay waan ogahay waanu dareensannahay oo waxa weeye sunnaha noloshay ka mid tahay tiimka 6 gobol jamhuuriyadda Somaliland ee aan manhajka xisbiga kulmiye ku guuleysanin inaanay raalli ka ahayn oo qalbiga iyo qulubtuba ay ka jeclaayeen buuggoodu inuu guuleysto sidaas leegbayaduna u dhacday 2017kii xisbiyadii kale manhajkoodii inaan lagu guuleysan oo ay qalbiga iyo qulubtuba ka jeclaysan laakiin dhammaanteen waxaynu qalbiga iyo qulubtuba ka jecelnahay in qarankeena ay ka dhacdo doorasho nabadgelyo in maatideenna shacbigeenna hantideenna maalkeenna moodkeenna aynu soo dhaqaynay boqolaalka sano ee caasimadaheenna Boorama Hargeysa Burco Berbera Cerigabo intuba ay hantidaasi waxa weeye hesho qaran shacbigu hela qaran ummaduna hesho qaran waxaynu dhinac uga soo wada jeednaa oo aynaan marnaba raalli ka noqonaynin xukuumadda cusub ee dalka waxa weeye la wareegi doonta in ay dhexdeena ka shaqayso inayna kala qaybiso in ay waxa weeye waxaynu ka diidi doonaa in ay iyadu adeegato oo aanay shacbiga u adeegin waxaynu ka diidi doonaa in waxa weeye talaabooyin aan shacbigu raalli ka ahayn oo aragtida macsharka iyo ummadda jamhuuriyadda Somaliland ee la xukumayo aanay ku jujuubin waxaynu ku taageeri doonaa waxbarasho la wada leeyahay caafimaad la wada leeyahay wadooyin iyo mashaariic la wada leeyahay shaqo gelin la wada leeyahay Somaliland qurux badan oo shacbigeedu wada raalli gelinaysa Somaliland resource qurux badan leh oo loo soo saaro shacbiga jamhuuriyadda Somaliland qofka loo eegayo muwaadinimadiisa iyo dhalashadiisa Somaliland baahiyaha asaasiga deegaanada ka kala jira deegaan walba baahidiisa si gaar ah loo eegayo iyo halka uu ugu baahi qabo taasaynu ku taageeraynaa ku taageeri mayno ilayo qalafsan ku taageeri mayno in laba aabbo wada dhaliyo ubad walaalaa ay kala qaybiso ku taageeri mayno 6 gobol ee jamhuuriyadda Somaliland ku taageeri mayno waxaan aragtida shacbiga jamhuuriyadda Somaliland raalli ka ahayn inay nagu joogto waxaynu iibsanay manhajka buugga ee ku salaysan diblomaasiyadda waxaynu la daba taagnaanaynaa buugga waxaynu la daba soconaynaa buugga waxaynu eegaynaa buugga in uu ka fulo shacbiga jamhuuriyadda Somaliland dhammaanteen waynu guuleysanay Boorama guuleysatay Saylac baa guuleysatay walaalaha iyo gabiilay baa guuleystay 26 Juun iyo Koodbuur baa guuleysatay 31 May baa guuleystay Axmed Dagax iyo Maxamuud Haybe baa guuleystay macallin Haaruun iyo gacan libaax baa guuleystay afarta daamood ee Berbera guuleystay Burco Andhanaatu iyo guuleysatay Sool iyo Sanaag baa guuleystay hal haysteenuna waa Somaliland baa guuleysatay intaas waa reer Somaliland waxaan idin leeyahay markaa waxaynu ilaalinaynaa midnimadeena qarannimadeena wada jirkeena iyo wada noolaanshaheena midnimadeena wada jirkeena iyo walaaltinimadeena saddex aragtiyood oo saddex xisbi qaran oo madaxtooyaha ugu tartamayno inuu ku kala aragti duwanay laakiin qaranka inaynu wada leenahay inaynu xidid iyo xigaal labaaba wada dhaliyo wad walaalaanahay kuma kala aragti duwaneyn shalay 2017 waxaynu ku kala aragti duwaneyn kulmiye wadani iyo wicid saakana waxaynu ku kala aragti duwaneyn wadani kulmiye iyo wicid oo qof bay dhinac raacay dhammaan 6 gobol oo saddexdaba kala raacay haloo kala badiyo laakiin saddexduba way kala raaceen saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Somaliland iyo saddexdii madaxweyne musharax inay kala raacaan aragtiyahaasaynu ku kala duwanahay taasi waa xabad laakiin 99 sababood bayna mideeya 6 gobol 99 gobol ayayna mideeya ma filayo inay cid gaar ah iyadu si khaas ah u dabaaldegi oo ay boodboodi waayo cid gaar ah waxaan la hima jirto waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ma filayo xisbi gaar ah deenu soo hambaliyo iyo yiraahdo buugeeni waa lagu guuleystay mooyaane in ihtifaalaad iyo boodbood raallina kama nihin anigoo caaqila waxaan qurba joogtan ugu baaqaya guda joogtan ugu baaqaya
waxaan idinku baaqayaa in ixtifaalaadka iyo boodboodka ilaahayna aanu raalli ka ahay. haddaba maqlaysaa ilaahay markaa ugu shukriya qarankeenna in doorashadii shanaad ee one man one votekii ay ka dhacday jamhuuriyadda somalilan. ilaahay ugu shukriya in waxa weeye ilaahay amnigii inoo ilaaliyey oo doorasho ammaani ay dalka jamhuuriyadda somalilan ka dhacday. ilaahay ugu shukriya inaynu dhammaanteenba, laakiin ilaahay ha ugu kufriyina oo kolba yay dhinac jaasin. shalay hadduu jaase xisbiga kulmiye 2017 saaka wadani jaas lama rabo. waxaa la rabaa inaad masaajidada gashaan, qaranka u ducaysaan, ilaahay roobka iyo nimcadiisa weydiisataan, khayrkiisa weydiisataan, erey wanaagsan iyo suuban. annaga nama matalo oo falaysa minna. qofkii dariiq khaldan qaada, qofkii weli jihadii hore iska sii haysta, inama matalo. markii hore mucaarad baynu ahayn 2017 waxa weeye xisbiga kulmiye ayaa mucaarad ahaa. ma matalo shacbiga jamhuuriyadda somalilan. haddaba maqlaysaa ma matalo shacbiga jamhuuriyadda somalilan qofkii dariiq khaldan qaada ee ummadda iyo shacbiga waxa weeye dee halkaa kasii kala wadaa. marka waxaan idinkula dardaarmaya dadkan jeclaa, waxaan kula dardaarmaya intaan caaqilka u ahay reer somalilan, waxaan kula dardaarmayaa oo aan dabaday jiraa faray wada jir, walaaltinimo iyo halhaysteenoo ah somalilan baa guulaysatay. aad iyo aad baan dhammaantiin ba idiin wada salaamaya. shacbiga jamhuuriyadda somalilan ha noolaado. ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ammaanka ilaaliyey oo shacbiga si wanaagsan ula dhaqmayay ha noolaadaan. hay-adda madaxa bannaan ee commissionka qaranka jamhuuriyadda somalilan baan hambalyo u dirayaa. waa hay-addii waxa weeye doorashadii shanaad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan qabatay, free and fair elected presidentna shacbiga somalilan. waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan oo amniga iyo sifilka dhexdiisa si wanaagsan uga shaqaynayay. waxaan u mahad celinayaa ciidanka militariga qaranka jamhuuriyadda somalilan, ciidanka immigrationka, waaxda nabad sugidda, waaxda militariga, generaalada ciidanka, taliyayaasha saldhigyada. waxaan u mahad celinayaa culimaadudiinka, ganacsatada. waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo qayb ka qaadatay in maanta qarankeenu uu ku guulaysto doorasho nabadgelya oo xor iyo xalaala jamhuuriyadda somalilan. ha noolaato xadka iyo xuduudda jamhuuriyadda somalilan. ha noolaato calanka iyo ciidda jamhuuriyadda somalilan. ha noolaadaan shacbiga calankan iyo ciidan iskale. ha noolaadaan oo cumrigoodu ha raago shacbiga jamhuuriyadda dimuqraadiga somalilan. aad iyo aad baan idiin salaamaya. xayaakum allahu rab alcaalamiin. galab wanaagsan.